halgankii waa bilowday ma dhammaan ilaahay inta dhiman ha loo saqiro Soomaaliya oo dhan Allah u saqiro walaalayaal aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan si gaar ah ugu mahad celinaa jananada ciidanka oo generaalka ciidanka lugtu horeeyo generaal Biixi iyo generaalka qaybta generaal Tawane iyo maamulka gobolka Hiiraan ee gudoomiye Cali Jeete gudoomiye u yahay runtii si gaar ah ugu mahad celinaynaa waa laga wada qayb qaatay halgankan dagaalka qof walba kaalintay ku lahayd inta badan waa laga buuxiyay qolaaba dhulka ka hoos u jirto yaani nafteedii ku bixisay laakiin qof nafteeda bixida iyo qof nacfigeeda bixida iyo qof ilaahay waqtigeedii oo dhiman dartiis ku badbaadiyaba haddaan laga shaqayno la abaabulin oo yaani aan dirtiiba loo sameeyo waxaas oo dhan ma qabsoomeen guusha aan maanta ku xaragoonayno oo Soomaaliyuna qirayso annaguna qirayno ilaahayna uu og yahay na ma qabsoonteen nabadda aan halkan kula shirayno oo wadooyin badan oo shalay aanan marin iyo guryo iyo geedo badan oo shalay aanan ku gam'ayn aan ugu gam'aynaana ma dhacdeen ilaahay weyn amarkiis ka sokow waxa hoggaan u ahay dadku waa ka wada qayb qaateen laakiin inta sheegay hoggaan u ahay waa ugu mahad celinaynaa waxaan idin leeyahay guuleysta adduunkana sharaf ku jooga aan qarana hadii waqtigiinu galo ilaahay jannaha idin siiyo inta kale oo ka qayb qaadatana ayagana waa aad iyo aad ugu mahad celinaynaa lama kala maarmo dadku dhamaantiis inta wax ka dhaxayaan waa qof labadii gacmood hadii gacam la qabto gacanta kale wax ma qaban karto dadka wax ka dhaxayaan saas uu la mid yahay waxaan codsan walaalayaal horta in muwaafaqada la ilaaliyo sida generaal Biixi u sheegay la wada shaqeeyo dadku waa bilaadan oo kala fikri waa noqon kariyaa kala aragti waa noqon kariyaa wax waa la kala jiidan karaa laakiin waxaan codsanaa dagaalka al-shabaab intuu nagu furan yahay oo ka soo afjarayno oo ninkii waqtigiisu galo Allah xigta maaragtay looga yimaadana oo ka dhimanayo ninkii waqtigiisu dhiman yahana oo sharaf oo ku xaragoodo ku sheekaysto ku gaban gurigiisa oo ka helayo waxa kale oo dhan aan liqno gadaal aan marino taas kaliya aan labada gacmood isku geyno xoogayna iyo xoolahayna aan isku geyno ilaahayna aan u tala saarano waa ka guuleysanaynaa intaas kadib waxaan rabaa meeshaan shir laba maalmood loo fadhiyay ka socday inta xildhibaanku sheegay iskugu timid haddii saraakiisha ciidanka tahay haddii xildhibaanadii heer gobol iyo heer maaragtay federaal tahay haddii maamul gobol tahay heer gobol iyo heer degmo tahay haddii bulshada qaybaheeda kala duwan oo ururada bulshada ay tahay kulli halkan waa iskugu dhig shirku shalow loo furmay maantana waa loo xirmaa haddii ilaahay idmo talooyinkii ka soo baxayna waa inta xildhibaanku akhriyay iyo in kaloo badan oo ayaguna hadda aan lagu soo koobi karin oo ama shalay hore loo sheegay ama lagu soo koobi karin hadda qoraal lagu soo koobi karin walaalayaal marka waxaan iga codsanaynaa inta shaqada gaarka loo xil saaray oo intii awal hore u wadaba ah intooda badan waxaan codsanaynaa qolo kasta shaqadii loo xil saaray inay si degdega iyo gees isku baxaan ay isla arkaan ay si degdega u dardar geliyaan dadka Soomaaliyeed ama ummadda argagixisada dagaalkeeda inay ka qayb qaadato rabta waxa laga yaabaa in hadda ka hor dhowr jeer dhageyga ku soo dhaceen dadku meelay wax ugu hagaagaan iyo meelay dagaalkan wax ugu hagaajiyaan ilaahid
meelay dagaalka wax ugu hagaajiyaan iyo cid loo ambaaraan lala dhowr jeer dhagay ku soo dhacay war hadda waa idin sameeynay oo iyan ka tashanay oon falaaqaynay ayaa aragtidaas naga soo baxday raggaas asiga hawshaas aan xil saaranay ciddii ama dalkan joogta ama dibadda joogto dagaalka inay ka qayb qaadato rabta raggaasa akoonkii wax ugu soo shubaan u sheegaaye ayagaana looga wakiilehe ayaga loogu soo hagaajiyeen waana uga mahad celinaynaa raggaasaana looga wakiila ayagaasaan ku midaysannahay muwaafaqo ku nahay adukuna ayaga la shaqeeya adukuna ayaga la shaqeeya dal iyo dibad meeshaad rabtiin meel aamina jooge oo aad joogtiin waxaan idiga codsanaynaa inaad qofkii xooggiisa keeni karaana oo dagaalka xooggiisa soo geliyo qofkii xoolihiisa keeni lahayna oo meeluu hadda la ambaaro lahayo haddaad hebel u dirto intou geyna haddaad hebel u dirto ama saas lagu yidhaa lahay war kuwaasaa la isku raacsayo hadda aan u idmanaye kuwaas loogu soo hagaajiya waxaan idiga codsanaynaa nimanka aan u xil saarnay shaqada oo labada guddi ah horena waa uga shaqaynaydeen shaqada haddaan idin xil saarnay haddaana waxaan idiga codsanaynaa inaad sii laba jibaartaan waxaa laga yaabaa dadan awal hadda aan idi ogeyno inuu hadda idi ogaade waxaan isleeyahay faraska waxaa jaydalka loogu badiyaa orodka ha dheereeyo waa ognahay inaanad hadda aanad maaragtay shaqadaas awal aad hore heriya habeen ugu taagnadeen waa mahadsan tihiin ciidamada dib u xuraynta iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeedna waa si gaar ah ugu mahad celinayna ma hilmaami doono qabiilka meeshan degan ama gobolka Hiiraan jooga waxaan uga mahad celinaynaa sidii sharafka lahayd ay isku abaabuleen ay dawladda Soomaaliyeed u garab istaageen ay cadawgooda ugu midoobeen ilaa haddana ay wili heega kugu yihiin si gaar ah ugu mahad celina mana hilmaami doono waxaan idin leeyahay kiinii dhita Allah u naxariisto kiinii dhaawacma Ilaahay caafiyo kiinii nool Ilaahay